dhalinyaro ilaahay baa idin karaameeyay hadduu iimaan idin siiyo muslimiinna idinka dhigay nebi maxamed dad rumaysan oo raacsanna ilaahay idinka dhigay qiimo idinma laabna laakiin maalinka intaad ka siibataan oo siibtaan marada quruxda badan ee qiimaha leh gaala raacitaankeeda aad wax moodaan waad dullowdeen dabagelis baad noqoteen gaala daba socda xor ma tihid caqligaagu xor ma aha dhaqankaagu xor ma aha fikirkaagu xor ma aha waad dullaysan tahay oo nin dullaysan baa dabadhilif u tahoo daba socotaa qiimahaagii aaway soo ma ogidin 1200 oo sano inaad caalamkan hoggaaminayseen soo ma ogidin ood aqoon ku hoggaaminayseen ood tiknolojiya ku hoggaaminayseen ood caqiide ku hoggaaminayseen ood akhlaaq wanaagsan ku hoggaaminayseen oo awood military aad ku hoggaaminayseen soo ma ogidin inaad sharaf iyo karaamo lahaan jirteen soo ma ogidin xaaladdan hadda lagu sugan yahay in laga bixi doono mar labaad cizigi iyo sharaftii iyo karaamadii iyo awooddii muslimiintu soo noqon doonto ood caalamkan mar kale hoggaamin doontaan maxaad u dullaysan tihiin maxaa keenay maalmo yar iyo duruuf la marayo oo xikmad ilaahay ku timid iyo qadarkiisa inaynu madaxa foorarino oynu dullowno oo gaala u sujuudno oo waxa agtooda yaalla aan wax moodno laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad gadgadoonka gaaladu ay adduunka ku gadgoodoomaysiiya waxay haystaan iyaysan idinkadinin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala ha ku kadsoomina ha ku khaldamina cizi agtooda ma yaalo xoogaa birta ay hagaajiyeen iyo horumarkan adduunyay keeneen ma aha wax walba inuu yahay qul laa yastawi alkhabiidu waalayibu walow acjabaka kasratu alkhabiid xumaantu hadday badato badnaanteedu wanaag uma beddelo wanaaggu hadduu yaraadana yaraantiisu xumaan kama dhigto xumaanna waa xun tahay si kastay u badan tahay wanaagguna waa wanaag si kastoo uu u yaryahay dadkiisuna u tabardaran yihiin